aan idin bayaanshe buuda hadalku wuxuu yahay Soomaali baraaruga hawsha uu bareero soo baxa barwaaqada dadkii birahana tabcada dadkala waxaad ka baridana bayka ma goysi ballanteenu waa shaqo ballanteenu waa shaqo ballanteenu waa shaqo ballanteenu waa shaqo liya sacabadaada lagom baxa ballanteenu waa shaqo ballanteenu waa shaqo beeraho Israa'iil midnimadoonu baaqna ballanteenu waa shaqo ballanteenu waa shaqo liya sacabadaada lagom baxa ballanteenu waa shaqo ballanteenu waa shaqo beeraho Israa'iil midnimadoonu baaqna ballanteenu waa shaqo ballanteenu waa shaqo laba arrimood oo muhiim ah ahmiyadda ay leedahay private inay business private-ka ahmiyadda ay bulshada u leedahay waa la sheegay waxa ugu muhiimsan waxa weeye waa in ay shaqo abuuraan marka in la helo shaqo dhallinyaradeennu ay shaqo helaan waxaa asal u ah in private-ku iyo ra'sumaalka dadka gaarka ay leeyihiin in waddanka la geliyo marka waan uga mahad celinayaa mar kale inay hantidoodii geliyeen oo ay fursad siiyeen inta hadda laynoo sheegay dad dhallinyaro ah oo gaaraya ilaa 150 qof in shaqo la siiyo halkan kaliya ay ka shaqaynayaan 120 marka taasna waa runtii wax aan ku ammaanayno oo ku mahadsan yihiin abaal weynna ay ugu hayso ummadda Soomaaliyeed marka taasna waxaan dhihi lahaa waa muhiimad ay leedahay ay inoo leeyihiin private-ka ay inoo leeyihiin iyo ganacsiga gaarka loo leeyahay dee intan keliya ma aha laakiin kambaniyadeenna kumanaan Soomaaliyeed ayaa u shaqaysa oo shaqo ka hesha 100,000 oo qoys oo Soomaaliyeed ayaa ku tiirsan marka dhammaantood waan u mahad celinaynaa inta ku mitiday ee maalkooda gashatay ee ka shaqaysatay dadka Soomaaliyeedna fursad u abuurtay way mahadsan yihiin waxaan ugu baaqayaa dhammaan sida ninka odayga oo milkiilayaasha ka mid ahiba uu ugu baaqay ganacsatada Soomaaliyeed ee aan ognahay inay adduunka xoolahoodii meel walba geliyeen inay dalkoodii ku soo laabtaan oo ay dalkooda maal gashadaan ayaan ugu baaqaynaa waxay tusinaysaa Soomaaliya inay meel fiican marayso suurada quruxda badan ama sawirka quruxda badan ee dalkeenu leeyahay ayay muujinaysaa supermarket-kan ama hypermarket-kan uu muujinayaa haddii marar fara badan inta xun ama inta madow ama sawirka madow aan leenahay caalamka loo bandhigo caawa waxaynu bandhigaynaa kii quruxda badnaa ee aan lahayn aan bandhigaynaa waxaan ka horeynaa markii xaqiiqada loo hadlo in fara badan oo caalamka ka mid ah oo dawlado ahaa ayaynu wax badan kaga horeynaa sida tiknolojiyadda oo aan wax badan ka horeyno oo aad markhaati ka tihiin meelaha qaarkood markaad tagto dhibka kaa qabsanaya inaad internet free ah hesho oo si caadi ah dadka ula hadasho caawana waxaynu joognaa Istanbul iyo Ankara baan la tartamaynaa oo moolalkoodii iyo marketskii meelahaas ka jiray ayaa caawa halkan Muqdisho ayaan ku caweynaynaa marka waxaynu maraynaa meel aad u qurux badan ganacsigu wuxuu la jaan qaadayaa amniga wuxuu la jaan qaadayaa horumarka oo dhinac walba ayuu la jaan qaadayaa wuxuu la jaan qaadayaa
bilicda magaalada iyo soo noqoshadeeda ayuu la jaanqaadayaa oo la jaanqaadayaa kala dambeynta iyo sharci in la abuuro oo dadku ay shuruuc iyo qawaaniin dalku leeyahay lagu dhaqmo ayay la jaanqaadayaa businessku mar kasta oo dowladnimadu hormarto mar kasta oo businessku hormara waayo marka hadday jirtay cuqdad ah oo businesska iyo dowladda bay iska soo yar horjeedaanoo hadday dowladdu xoog badato hadday dowladdu kor u dhaqaaqdo ama businesski uu hoos u dhacaa waxay la tahay dee caalamku wuu inaga wada xoolo badan yahay wuuna inaga dowlad adag yahay marka billions of dollars adduunyadu meel dowlad joogtoon baa lagu sameeyey marka xoolo badan baa inagaga maqan dowladnimada iyo kala dambeynta businesska adduunku safaaraduhu way ilaaliyaan dibadda marka la joogo dowladuhu way ilaaliyaan waa ilaalinaynaa annagana keenna protection aan u samaynaynaa opportunities aan siinaynaa waan soo dhawaynaynaa waxaan rajaynayaa in xoolaheenni ay soo noqdaan meelo kale ay ku jiraan oo dalkeenna ku soo noqdaan waxaan rajaynayaa inay hoteeladeenna dunsan galaan waxaan rajaynayaa inay 5 stars noqdaan waxaan rajaynayaa in jidadkeenna galaan waxaan rajaynayaa in dhulkeenna galaan annagu ka xukuumadda waxaa naga go-an oon ballan qaadaynaa inaan soo dhaweyno ganacsiga ilaalinno u fududayno inaan dee annaga dadaalkayagu iyo waxaan u samaynaynaa added value inuu noqdo shuruucda inaan u samayno protect garayn lahayd oo ilaalin lahayd marka inaan iskaabno annagu waxaan qabnaa nidaamkeennu waa free market waxaa waaye xor monopoly ma jiro dadku way tartamayaan dowladduna way fududaynaysaa way regulate garaynaysaa shuruucdii bay u samaynaysaa amnigii bay sugaysaa waxaa waaye ganacsigana insha allah wuu inoo barakoobayaa waxaan rajaynayaa marka inaynu noqonno ummad kor u socota dowladnimada ku dadaasha ganacsigeenna iyo xoolaheenna dalkeenna inaan gashanno weliba kuwo kale oo adduunkaana inaan u yeerno oo dalkeennu uu noqdo muhiimadda uu leeyahay inay ka muuqato dadkeennu firfircoonida iyo kartida ay leeyihiin inay ka muuqato inta aan dalalka kala gelinno in la eg dalkeenna inaan gelin sidaan shuruucda ugu hoggaansanno markaynu dalalka kala joogno inaan dalkeenna markaan joogno ugu hoggaansanno si aynu canshuurta u bixinno markaan dalal kale ku shaqaysanayno inaan dalkeenna markaan joognona u bixinno ayaan u baahannahay marka qofka soomaaliga ma aha inuu markuu dalkiisa joogana oo anarchism noqdo markuu dalalka kala tagana inuu noqdo qof oo sharciga aad u raaco oo aan dhinacna uga leexan inuu noqdo lama rabo bal markuu sharciga waddankaaga joogo inaad sharcigaaga ilaalisaa la rabo sidaa darteed mar kale waxaan leeyahay ganacsatadeennu dalkooda ha u soo laabtaan xoolahoodan ha gashadaan ha ku daysadaano walaalahan caawa meeshaan ka furtay iyo kuwa kale fara badan ee magaaladan ka furan iyo magaalooyinka kale ee ka shaqaysta dalkooda ha lagu daysado waad mahadsantihiin waxaan idiin rajaynayaa guul waxaan idiin rajaynayaa horumar wasalaamu